xabad joojin aan caga adag ku taagnin ayaa ka dhaqan gashay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo labadii maalmood ee ugu dambeysay ay ka dhacayeen dagaalo u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan maamul goboleedka Puntland iyadoo dagaalkii ugu dambeeyay saaka hiirtii waabare ay dad ku dhinteen dadkaasi oo ahaa rayd badankoodu waxaa ku habsaday madaafiicda hoobiyaha oo dagaalka loo adeegsaday duqeyda dhaqanka iyo culimadiinka deegaankaasi ayaa sheegay in dawladda iyo ciidamada ka soo horjeeda iminka ay qaateen xabad joojin ah in la joojiyo xabadda isla markaasna la wada hadlo wararkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso waxay naga soo diray wariyaha Maxamed Xasan Dhalo saaka salaadii subax ayaa lagu waabaristay rasaas ay isweydaarsanayaan ciidamada PSF uu hogaamiyo Maxamed Cusmaan Diyaano iyo ciidamada kale ee dawladda Puntland oo halkaasi isku horfadhiyay oo shalayna dagaal ku dhexmaray rasaastaasi waxa ay socotay ciidamadu isweydaarsanayeen in ku dhow 4 saac oo joogto ah iyadoona khasaare uu soo gaaray qaybaha kala duwan ee dadka ku nool magaalada Boosaaso qaar kamid ah waxa jiray dad rasaastu ay ugu tagtay meelo kala duwan oo magaalada kamid ah kuwaas oo la geeyay cusbitaalada magaalada laakiin labada dhinac ee uu dagaalku dhexmaray ma ay sheegin midkoodna khasaaraha soo gaaray waxa jira 3 cusbitaal oo kamid ah magaalada Boosaaso aanu tagnay waxa mashquul ahaa dadkii ka shaqeynayay iyadoona mas'uuliyiinta cusbitaalkaasi ay fursad u waayeen ay nagula hadlaan maadaama la keenay dhaawac tiro badan oo ay halkaasi ku mashquulsanaayeen dadka qaar ayaa ka barakacay magaalada oo ilaa shalayba laga guurayay iyadoo dadku qaarkood aysan awoodinba waxay ku guuraan sida dadka deegaanka ama ka barakacayaasha magaalada Boosaaso oo qaarkood aanu kula kulannay halka magaalada lagaga baxo iyagoo oola qaar ka mid ah carruurtoodii oo ay noo sheegeen inaysan gacan ku hayn arrintan saaka dagaalku marka uu qarxay intii rasaasta socotayba waxa waan bilaabay ee loogu kala dab qaadayo labada dhinac dhismada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ganacsatada iyo culimada iyagoo la kulmay labada dhinac waxa ay la kulmeen wasiirro ka tirsan Puntland oo ka mid yahay wasiirka amniga Cabdisamad Maxamed Gallan kaas oo ay sheegeen in ay isla afgarteen in xabad joojin la sameeyo Cabdisamad Gallan oo mar warbaahinta la hadlayay wasiirka amniga Puntland waxa uu sheegay in ay xabad joojin sameynayaan sidoo kale ciidamada PSF war qoraal oo ka soo baxay goor dhaweed ayaa lagu sheegay in ay ku dhawaaqeen xabad joojin laakiin waxa wali jira inay soo fadhiyaan ciidamadii xaafadda Ridwaan isku horfadhiyay ee uu dagaalku ka dhaxeeyay ismada Puntland ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxaana ay sheegeen inay darfaha ay la kulmeen ku qanciyeen in xabad joojin la sameeyo iyaga oo ku baaqay in loo gurmado dadka daadsan wadada Boosaaso ku xirta gobolada kale ee dalka oo ka barakacay rasaastii Boosaaso ka dhacaysay ee isweydaarsanayeen PSF iyo ciidamada kale ee Puntland waa hagaag haddaba sidaad maqlayseen isimada iyo culimadiinka magaalada Boosaaso oo galabta kulan ku qabtay magaaladaasi waxay kaga hadleen hanaanka xabad joojinta ee ay soo bandhigeen waxa labada dhinacba waa la kulmay dhinaca dawladda iyo dhinaca dhalinyarada kale waa la kulmay waa soo dhaweeyeen saakana wasiiradii baa la kulmay waxay soo dhaweeyeen nabadda wayna ku dhawaaqday dawladdu madaxweynahana waxa laga soo raray inuu arinta aqbalay way ku mahadsan yihiin laakiin dawladda waxa laga rabaa asbaabta keenaysa inay nabadi dhacdo inay dawladdu ku tallaabsato oo kow ay ka tahay ciidamada inay meesha ka soo saarto waan ciidamada meesha laga soo hadii kala nabadi ma jirayso waxba dhacdhacaya saaka ay markii aan kala tagnay oo arinta la isla qaatay haddana waxba dhacayo rasaas baa dhacaysa arinta in la joojiyo dawladda waxa looga baahan yahay iyada dadka u dhaaratay iyada maamulka haysa ina dul qaadato ismada dhankoodana waxa hadlay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil oo isna ka hadlay qorshaha ay wadaan ilaahay fadliga ka subhanahu wa ta'ala si nabad inuu soo dhamaato runtii aad baan ugu mahadcelinayaa tarafyada dawladda inay naga aqbaleen arrimihii tala soo jeedinta u jeedinay runtii waana ku mahadsanyihiin fadligaasna waxay ka ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobka xiga waxa weeye horta dadka soo barakacay ee banaanada joogay loo gurmado culimo iyo ganacsato iyo caamo inay u gurmadaan baan farayaa laana dad maata baa ku jira carruur baa ku jirta dumar baa ku jirta qaxay xaafadooda ka qaxay hoyna ay haysan oo aad ma taqaana u tabaalaysan arrinkan wax laga qabto horta farinta waa farayaa farinta ku xigta waxa intii dhimatay Ilaahu naxariis subhanahu wa ta'ala intii dhaawac soo gaarnay Ilaahay uu booga dhagayo kullay xaajadu hadday bilow tahay halkan ku ekaan mayso ilaahiidankii laakiin insha Allah inta ka gaarina nabad waarta waanu u istaagayna waana la soconaynaa si dhow iyo si fogba